turkiguna wuxuu baadigoobayaa nin $2 bilyan oo lacaga oo dhinaca markaasi waxa loo yaqaano currency oo la mid ah lacagtii dabcan waxay u egtay waa sheekadii forex-ka ee Soomaalida oo kale ay la baxsaday sida ay u sheegeen ama ay sheegeen booliska caalamiga Interpol. Faruq Fatih Ozir ayaa la sheegay inuu gaaray dalka Albania isagoo xambaarsan lacag gaaraysa $2 bilyan sida la aaminsan yahay oo ilaahayeen ku dhawaad 400,000 oo qof oo dadka maalgashiyaasha kamid ahaa. Booliska ayaa waxa ay sheegeen inay soo qabqabteen dad 60 qof kor u dhaafay isla markaana waxay hareereeyeen magaalooyin kala duwan oo ay ku tuhmayeen in uu dadka si ganacsigaasi watay ku jireen. Dowladda Turkiga ayaa gorsii horeysay oo toddobaadka hore ahaa mamnuucday ganacsiga markaasi currency craft oo ay ku tilmaameen ama waxa loo yaqaan markaasi cryptocurrency oo ay ku tilmaameen inuu yahay barnaamij khatar badan oo sharci darro ah. Dad badan ayaa ka walaacsan lacagtooda iyo dhaqaalahooda halka uu mari doono. kumanaan qof ayaa waxa ay ka war heleen hadal ka soo baxay shirkadda Torex taasoo Twitterka ku qortay fariimo ay ugu baaqayso in aan ganacsi la yeelan karin shirkadaasi, waxaana la sheegay in shirkadahan ay khatar ku yihiin dhinaca lacagta adduunka. Magaalada New Delhi ee dalkaasi Hindiyana waxaa la sheegay in ay oxygen ama neef saaciduhu uu ka noqday sida diamond oo kale kadib markii la sheegay in cusbitaaladii burbureen. Gabi Hamber waxaa la sheegay jahawareer xoogan uu dalkaasi ka taagay dadkuna trap ugu daadanayaan wadooyinka guryahana qaarkood ay ku ildaran yihiin. Dadka ayaa neeftu qabanaysa sidoo kalena waxaa la sheegay in xaaladooda ay aad u liidato, waxaana dowladda dalkaasi ay u muuqataa mid ku fashilantay Gabi Hamber inay xakamayso dadka xanuunka uu soo daadanayo iyadoo la arkayay dadka qaarkood oo markaasi ku xanuunsanaya jidadka. Xaaladda ayaana u muuqatay markaasi mid aad iyo aad u sii daran. Waxaa la arkayay bajaajyada ama bahasha tudda la yiraahdo oo dadka qaarkood ay oxygen kula xiran tahay isla markaana ay dhex jiifaan. Arrimahaas oo dhan ayaa waxa ay muujiyeen ayaa la yiri khatarta iyo waliba burburka xoogan ee dhinaca laanta caafimaadka ee dalkaasi gaaray. Dalka Myanmarna waxaa loogu baaqay militarigiisa inay joojiyaan dhiigga iyo rasaasta ay dadka la dhacayaan kadib kulanka ku soo dhamaaday dalalka la yiraahdo markaasi dalalka xulufada ee ururka loo yaqaan ASEAN oo ka dhacay markaasi oo dhexmaray 10 dal oo markaasi ka hadlay arrintaas markaana uu ka qayb galay jaranka ciidamada awoodda leh ee dalkaasi la wareegay General Min Aung Hlaing oo kaga qayb galay. Waxayna sheegeen in ay wada hadal degdeg ah ay furaan dhinacyadu the Southeast Asian Nations oo loo yaqaano markaasi the Association of the Southeast Asian Nations oo dalalka 10 ayaa waxa ay soo saareen qodobo ay kamid tahay 5 qodob oo waaweyn oo ku jirto in wada hadal ay furaan militariga iyo siyaasiyiinta iyo in la joojiyo xabadda halkaasi ka dhacaysa iyo arrimo kale oo dhammaantood ugu baaqayeen militariga inuu warka qaraabeeyo isla markaana dadka la heshiiyo. Habeeshana qiimaha leh kooxda Xuuthiyiintu waxay iyaguna dhankooda sheegayaan inay wali sii wadan gantaaladii ay la dhacayeen dalka Sacuudiga, waxayna sheegeen in weeraradii ugu dambeeyay ay ku qaadeen xarunta King Khalid ee ciidanka airbase la yiraahdo ku taal magaalada la yiraahdo Khamis Mushcid sida uu sheegayo afyeenka kooxdaasi Yahya Sariic. Mr. Sariic ayaa sheegay in gantaalo ay ku gameen halkaasi gaar ahaan barnaamijka ladan gaar ahaan diyaaradaha nooca loo yaqaan 2K 2 kilogram ee qasiif la yiraahdo, waxaana ay sheegeen in gantaalahaasi ay huwiyeen goobihii ay ku talagaleen iyadoo ay soo baxayso in dhawaan ay jirtay wada hadallo dhexmaray Iran iyo dowladda Saudi Arabia oo lagu qaraabeynaayo warka. Hase yeeshee waxay sheegeen in tan iyo inta lagu godoonsan yahay Yemen aysan joojin doonin gantaalaha ay la dhacayaan aagaasi. Waxaa sii socda ayaguna weerarada markaasi dhuumalaysiga u muuqda ee Israa'iil iyo Iran u dhaxeeya, waxaana xeebta dalka Suuriya lagu gubay markab ay Iran leedahay sida la sheegayo kaasoo la aaminsan yahay in lagu weeraray gantaal ama diyaarad drone oo ismidaamisa sida ay sheegayso kooxda dhinaca xuquuqul insaanka indha-indhaysa ee fadhigeedu yahay magaalada London ee xarunta dalka Britain ee loo yaqaan the Syrian Observatory for Human Rights la yiraahdo, taasoo fadhigeedu u yahay dalkaasi gaar ahaan iyadoo adeegsanaysa wakaalada wararka ee dalkaasi soo xiganaysa Sana la yiraahdo ee dalka ka soo baxda iyo dalkaasi ka soo baxda Suuriya ayaa la sheegay in uu gubtay markaasi tankerka nooc loo yaqaano oo markab ah oo qaada saliidda gaar ahaanna waxaa la sheegay in arrintan ay ka mid tahay dagaalka dhuumalaysiga ah ee labada dhinac u dhaxeeya. Dhawaan ayay ahayd markii warshada dhinaca nuclear-ka soo saartay dalka Iran dalka Israa'iil weerar lagu qaaday taasoo Israa'iil ay kaga jawaabtay gantaalo kale meelo kale la dhacday. Gobolka Tartus ayaa la sheegay in ay doonaysay xaruntaas
gaar ahaan xarunta leedahay Pinas inay shidaal ka qaado markabkaasi lamana hubo inuu shidaal ka qaaday iyo inuusan qaadin sida uu sheegay Rami Cabdulrahman oo madaxa guud ee hay'adda indha-indhaysa arrimahaasi ee fadhigeeda magaalada London ee dalka Britain ee Syrian Observatory for Human Rights leeyahay oo waxa uu sheegay sidoo kale inaan garanay khasaaraha weyn halkaas ka dhashay laakiin waxa la sheegay in hilaac weyn oo halkaas uu ka dhacay dagaalkan Dhumalaysiga ayaa dad badan wadnaha farta uga hayaan in aakhirka la isku soo bambixi doono isla markaana si fudud u dagaal u qarxi karo maadaama ay dalalku ay isku bacsanayaan badaha maraakiibta marasa iyo waliba sidoo kale goobaha kale ee dhinaca kabayaasha waaweyn ee labada dhinac qodobka ugu dambeeya daawashana qiimaha leh Ciraaq ciidankeedu waxa ay sheegeen inaan looba baahnayn hadda iyo wixii ka dambeeyay in ciidamada shisheeye dalka sii jooga taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida dalkaasi Ciraaq General Yahya Rasul ayaa waxa uu sheegay in dalalka shisheeye ay ka tagaan dalkooda isla markaana waxa uu ku dhawaaqay in farsamo ahaan iyo awood ahaan iyo tababar ahaan bay ciidankoodu u diyaarsan yihiin inay la wareegaan dhammaan ammaanka dalkooda Ciraaq uma baahna ayuu ciidamada banaanka ka yimid iyo kuwa Mareykanka hal askari oo naga dhinac dagaalamo uma baahnayn ciidanka Ciraaqna waxa uu haatan u diyaarsan yahay in uu kaliya u baahan yahay dagaalyahanadooda ah kuwa ayagu diyaarsan dagaalyahan aan Ciraaqi ahayn loo baahna gaar ahaan aan askari ahayn ayuu sheegay Rasuul wuxuu intaas ku daray in ciidamadoodu ay sii wadi doonaan wuxuu ku sifeeyay tababarka xooggan ay heleen wuxuuna sheegay in Ciraaq ay haysato ciidamo tababaran oo awood u leh inay difaacaan ciidda iyo dadkaba waxaana uu u sheegay dhammaan ciidamadaas iska baxaan dowladda Mareykanka ayaa laga soo xigtay inaysan hadeerto u diyaarsanayn in ciidankooda 2500 gaaraya ay ka saarto halkaasi siyaasadda madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump ayaa ahayd in gabi ahaan ciidamada Mareykanka dib loogu soo celiyo dhulkooda hooyo isla markaana ay joogaan dalkooda isla markaana ay faragelinta ka dayaan dalal kale laakiin siyaasadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa isbedeshay tan iyo intii Joe Biden uu talada dalkaasi qabsaday intaan ku joojiyay daawashana qiimaha leh barnaamijka markaasi maxaa xisale ayaa idinku soo maqan isaguna oo kaga hadli doono arrimaha waaweyn iyo dhibaatooyinka xooggan ee Soomaaliya lagaga argoosanaya arrimaha faragelinta kuwa la xiriira waxaan Ciraaq ka hadlo soo kale iyo markaasi arrimaha khuseeya amaanal